لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu caraaf, khaasatan qisadii nebi muuse calayhi salaam ee ninkii fircoon ahaa. duufaan iyo jaraad iyo qumal iyo dafaadi iyo dhiig ayaan ku dirnay buu dhahay ilaahay. aayaad cadcad ah bay ahaayeen, way kibreen, qoom mujrimiinayna noqdeen. mar allaala markii korkooda rijsigii uu ku dhacayna waxay dhaheen, muusow ilaahay noo tuug rabbigaa wixii uu kula ballamay. haddii aad naga faydo rijsigan iyo cadaabkaadna saaranna waa ku rumaynaynaa, reer bani israa'iilna waa lagula dirayaa. ilaahay ayuu u baryey, ilaahayna cadaabkii buu ka qaaday ilaa muddadii loogu talagalay ay gaareen, waaba laabteenba haddana. markii ugu dambaysayna waan ka aarsanay buu yidhi ilaahay, oo waxaan ku maashaynay badda, waayo aayaadka allay beeniyeen, waxayna ahaadeen khaafiliin. waxaan dhaxal siinay qoomkii la daciifsadayna mashaariqa alardi wa maqaaribaha, taasoo aan barakaynay gudaheeda. waxay taam ku noqotay kelimadii wanaagsaneed ee rabbiga ka soo fushayna reer bani israa'iil sabirkii ay sabreen. waxaan halaagnoon tirtirnay waxay fircoon iyo qoomkiisu samaynayeen iyo wixii markaa ay cariishaynayeen. wajaawaznaa waan gudbinay oo waxaan ka tallaabinay bibanii israa'iila reer bani israa'iilna albaxra baddii baan ka gudbinay buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waa mar allaala markuu ilaahay amray nebi muuse qoomkiisa inuu la baxo, ay meesha markaa ka tagaan. mar allaala markii ay baxeenna fircoon iyo qoomkiisii way dabagaleen, wayna raaceen. nebi muuse qoomkiisii waxay dhaheen, annaga waa nala soo gaaro, waa nala haleelay. kadibna ha cabsanina buu yidhi, ilaahaya ila jira. rabbina wuxuu u waxyooday ushiisa inuu badda ku dhufto, 12 jida uga baxay. waa laga tallaabiyey marka. wajaawaznaa waan gudbinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii baan ka tallaabinay. fa ataw calaa qawmin mar allaala markii aan ka tallaabinay waxay yimaadeen oo ay soo mareen buu yidhi ilaahay. fa ataw waxay soo mareen ama ay u yimaadeen calaa qawmin qoom dushii yackufuuna ku ictikaafsan oo ku nig calaa asnaamin sanamyo oo lahum ayagu ay lahaayeen. sanamyo ay caabudi jireen, qoom ku dulnag oo saa u haystaa ayay markaas soo mareen. qoomkii hadda ilaahay badda ka soo tallaabayo jidka looga furay oo cadowgoodii la soo badbaadiye, fiiri hadalkooda. qaaluu waxay yidhaahdeen, yaa muusaa muusow ijcal noo yeel lanaa annaga ilaahan, ilaah noo samay annagana, kamaa sidii lahum kuwanba ay u leeyihiin aaliha, say kuwanba aalihatun ilaahyo u leeyihiin, annakana ilaahya noo samay. qaala wuxuu yidhi nebi muuse, innakum adinku qowmun qoom baa tihiin tajhaluuna oo jaahiliin ah. hadalkaad ku hadasheen waa hadal jaahilnimo ah. war aaway ilaahii hadda idinka soo badbaadiyey cadaabkii dhibkii aad ku jirteen? aaway ilaahii hadda markii cadowga gadaal ay idinkaga yimideen, meel aad u baxdeenna aad weyseen? aaway ilaahii intii badda idinkala furay, idinkaga soo saaray oo jid idinkaga dhigay, kabacdina idinsoo badbaadiyey? aaway ilaaha? qoom jaahiliin ah oo wax magarad ah ayaa tihiin buu yidhi. wajaawaznaa waan gudbinay oo waxaan ka tallaabinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii baan ka gudbinay buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. dhinacan bay ka joogeenoo dhinacii kalea loo tallaabiyey, cadowgoodiina waa lagu qarqiyey ayagoo arkayaa fircoon iyo qoomkiisii badda lagu maasheeyey. wajaawaznaa waan gudbinay bibanii israa'iila
reer bani israa'iil albaxra baddii ayaan ka tallaabinay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala fa ataw waxay dul yimaadeen ama ay soo mareen calaa qowmin qoom korkiisa yackufuuna ictikaafsan oo ku dulneg calaa asnaamin sanam lahum ayagu ay lahaayeen. qoom sanad caabudoo ilaahay sanadka ilaah ka dhiganaya ayay markaas soo mareen. intay saa u fiiriyeen bay qaaluu yidhaahdeen yaa muusow ijcal yeel lanaa annagana ilaah noo sameey kamaa sidii lahum kuwanba ay u leeyihiin aalihatun ilaahyo. qaala wuxuu yidhi innakum adinku qowmun qoom baad tihiin tajhaluuna jaahiliin ah. saxaabada laftigooda way ku dhacday arrinta noocaan ah. mar allaala markii Xunayn ay ka soo noqdeen ayaa waxay soo mareen sida axaadiistu ay tilmaameen qoom leh geed ay barakaystaan. waxay surtaan hubkooda iyo islaaxooda. waxay ula jeedaan mar allaala markaan surana barakaa soo raacaysa. sidaa darteed cadowga waa ka guulaysanaynaa. markaasay dhaheen rasuulkii ilaahayow annaguna waxaad noo samaysaa daatu anwaad geed surasho u saaxiib ah. geed surasho u saaxiiba noo sameey. rasuulku wuxuu yidhi subxaana allah, ilaahay baa nasahan, waxaan waa sanan iyo kudayasho. jidad waaye buu yidhi waxaadna ku hadasheen hadalkii ay reer bani israa'iil muuse ay dhaheen ijcal lanaa ilaahan, ilaah noo sameey bay la mid tahay say kuwan ilaahyo u leeyihiin. qaala innakum adinku qowmun baad tihiin tajhaluuna jaahiliin ah. inna haa'ulaa'i kuwan mutabbarun waayo kuwa la halaagahayo, maabaa lagu dul halaagayaa hum ayagu fiihi ay ku dhex sugan yihiin. war waxaan ay haystaan ma aha wax khayr lagu gaaro. waxaan ma aha wax ilaahay jecel yahay. inna haa'ulaa'i kuwan aad tamaninaysaan mutabbarun waa kuwa la halaagahayo, maa hum fiihi waxay gudihiisa yihiin ay ku dhex sugan yihiin baa lagu halaagayaa. wa baatilun waxaana baatil ah maa kaanuu yacmaluuna wixii ay ahaayeen kuwa camal qabtaa. waxaan ay samaynayaan dhammaan waa la tirtiraa, waa baatil. waayo diin ma aha, diin shirki ku jirta diin ma aha. diintu waa diinka ikhlaaskee tawxiidka ah. kuwani kuwa la halaagaya waaye. inna haa'ulaa'i kuwani mutabbarun waa kuwa la halaagaya, maa hum fiihi waxa ay ku dhex sugan yihiinoo idinka aad tamaninaysaan yaa lagu dhex halaagayaa. wa baatilun maa ayaana bray kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna, ama waxaa baatil noqday waxay samaynahayaan. qaala wuxuu yidhi nebi muuse agayra allaahi, ilaahay kayrkiisa miyaan abqiikum idin raadiyaa? ilaahay kayrkii miyaan idinkaga dalbaa ilaahan ilaa xaal uu yahay? ilaah miyaan ilaahay kayrkii idinkaga raadina? dhagax iyo geed miyaan idin raadiyaa ilaah idinkaga dhigaa? qaala agayra allaahi, ilaahay kayrkiisa miyaan abqiikum idin dalbahayaa oon idinkaga raadiyaa ilaahan ilaah? wahuwa ilaahayna uu yahay fadalakum, allaha idinka fadilay cala alcaalamiina uunka dhammaantii. oonka iyo caalamkan oo dhan ilaahay idinka fadilay, kayrkiisa maan haddana ilaah kale idinkaga raadina? ma alla kalaan idiin samaynaa markaad ileedihiin ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha? aawa ilaahii idin fadilay, allihii uunka idinka kormarsiiyey. qaala nebi muuse wuxuu yidhi agayra allaahi, ilaahay kayrkiisa miyaan abqiikum dalbayaa ilaahan? ilaahnimo idinkaga dalbayaa iyo mid la caabuda, waxaal huwa ilaahayna uu yahay fadalakum, allaha idin fadilay, idinka sara marsiiyey cala alcaalamiina, caalamka dushii ama uunkii zamankaa jiray. waid anjaynaakum, wadkuruu xusuusta id wakhti anjaynaakum aan idinka korinay buu yidhi ilaahay min aali fircawn, ama aan idinka badbaadinay reer fircoon. yasuumuunakum waxay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaabi, cadaabkiisa ugu xun. yuqatiluuna waxay dilaayeen oo ay layn jireen abnaa'akum wiilashiina. wayastaxyuuna waxay ka sariiganayeen nisaa'akum naagihiina. wa fii daalikum kiina balaa'un waa imtixaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday, cadiimun ee markaa weyn. wakhtigaa bal xusuusta, aaway ilaahii idinsoo badbaadiyey,
aaway ilaahii idinka koriye fircoon aalkiisa dhibkay idinku haayeen? dad dhagax caabudayo asnaam haystaad leedihiin ilaah kanoo kale noo sameey. aaway macbuudkii idin najeeyey? wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilay id wakhti anjaynaakum aan idinka korinay buu yidhi ilaahay min aali fircawna fircoon ahalkiisa yasuumuunakum xaalo ay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun. yuqatiluuna waxay dilahayeen abnaa'akum wiilashiina. cadaab ka xun ma jiro. waa qoom dhan oo lagu soo rogay xukun ah in wiil kasta oo dhasho la dilo. wiil kasta oo u dhasho in la dilo qoorta laga gooyo. yuqatiluuna abnaa'akum wayastaxyuuna waxay ka xishoonayeenay ka jeesanayeenay iska dhaafi jireen nisaa'akum naagihiina. gabdhahana way dhaafi jireen sababtana wax kale ma ahee inay biyo u soo dhaamiyaanay addoonsadaan darteed yaa gabdhahanay u dhaafayeen. wa fii daalikum kiinaas imtixaankaa iyo dhibkaa haddaan dhahna balaa'un waa imtixaan oo min rabbikum ama wa fii daalikum kiina najaha ah badbaadka aan idinka badbaadinay balaa'un waa nimco oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay cadiimun ee markaa weyn. nebi muuse calayhi salaam kitaabka towraad lama siinin ilaa markuu fircoon dhintay maahane. fircoon markii la halaagay kadib baa towraad la siiyey. amaa ninka fircoon la yidhaahdo aayaadkaasuu ilaahay mucjiso uga dhigay. aayaad looga dhigay asagana wuu diiday. laakiin towraad waxaa la siiyey min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa waa markii la halaagay kadib. 30 maalmood ayaa lala ballamay. 30kiina 10 baa loogu daray. kadib ayaa la yidhi miiqaadka ilaahay imow si loo siiyo kitaabkii towraad. mufasiriinta qaar baa waxay dhahaan 30 maalmood oo bisha dilqacda ah ayaa la yidhi joog bisha dilxajkowdeeda imow. intaa kadib wuu soo soomay bay leeyihiin nebi muuse calayhi salaam. mar allaala markuu soomay 30kii maalmood ayuu soo baxay oo meeshii uu yimid. kadibna wuu soo cadayday. markaa kadib baa 10 maalmood loogu daray oo la yidhi ninka saa'imkaa riixda ka soo baxda waa jeclahaye maxaa saa u yeeshay? 10 baan markaa ugu darnay. say noqotaba qur'aanku wuxuu tilmaamay markii horeba in 40 lagula ballamay. 30 maa markii hore lagula ballamay bil ka bacdina 10 baa loogu daray. tii buu ilaahay tilmaamayaa. wawaacadnaa waan la ballannay muusa nebi muuse 30 laylatan 30 habeen. wa atmamnaahaa waannu dhammaystirnay buu yidhi ilaahay bicashrin 10 ayaan u taam yeelnoon ugu darnay. fatamma wuxuu ku buuxsamuu ku taam noqday miiqaatu rabbihi rabbigii ballantiisa 40 laylatan 40 habeen. 40 habeen bay noqotay. kadib baa la yidhi 40 habeen kadib noo imow. waa xilligii ay dibiga caabudeen. wawaacadnaa waan la ballannay muusa nebi muuse 30 laylatan 30 habeen. wa atmamnaaha waxaan taam uga dhignay ama waan dhammaystirnay buu yidhi ilaahay oo waxaan ugu darnay waaye 30kii bicashrin 10 baa loogu daray. fatamma wuxuu ku dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii ballantiisa 40 laylatan 40 habeen. wa qaala wuxuu yidhi markuu 40kii dhammaaday uu rabo inuu ballantii aado muusa nebi muuse wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkii haaruun ahaa ukhlufnii iiga khaliif noqo. iila joog oo iiga gadaal mar fii qowmii qoomkayga. wakiil iiga noqo wa aslix hagaaji. walaa tattabic ha raacin haaruunow sabiila almufsidiina mufsidiinta jidkoodana ha raacin. nebi muuse wuxuu ku dhaafay qoomkiisa walaalkii haaruun. asaga wuu soo baxay oo wuxuu soo aaday jabalu tuur iyo meeshii ilaahay kula ballamay ee kitaabka lagu soo siin lahaa. dardaaran buu u soo dhaafay marka walaalkii. wa qaala muuse wuxuu ku yidhi markuu soo baxhayay liakhiihi walaalkii haaruun ukhlufnii buu yidhi khaliif iiga noqo. bedel iiga noqo oo booskayga joog waaye macnaha. qoomkayga mar allaala markii aan baxo khaliif ka noqo fii qowmii. wa aslix islaaxi wax wanaaji. walaa tattabic hana raacin sabiila almufsidiina mufsidiinta jidkooda.
waynoo imaan doontaa mar allaala markuu soo baxo uu ballantii soo aado yay dibi caabudi doonaan. waxa uu u soo saari doonaa ninka saamiri la yidhaahdo cijlan jasadan fa akhraja lahum cijlan jasadan lahu khuwaar, cod dibi ah leh, sansaan dibi intuu sameeyey oo dabka dahab iyo waxyaabo laysku qurxiye lagu riday oo wuxuu ka sameeyey shay dibi oo kale ah, afka horena ka furan gadaalna ka furan. markaasaa aaryada iyo dabayshu markay gasho wuxuu u dhawaaqayaa sidii cod dibi oo kale ama cod lo oo kale ayuu soo bixinaa. markaasuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusaa fanasiya, kana ilaahiini ah muusena ilaahay u ahee wuu hilmaamay buu yidhi, ee midkaan caabuda. ayaga iyo haaruun qiso dheer baa ka dhacday, waynoo imaan doontaa. wawaacadnaa waan ballannay oo waxaan kula ballannay muusaa nebi muuse 30 laylatan 30 habeen ayaan la ballannay inuu 30 habeen kadib yimaado miiqaadka. wa atmamnaahaa waan dhammaystirnay oo waxaan ugu darnayoon taam uga dhignay 30kii ب10 40 bay markaa noqotay. fatamma waxaa dhammaystirmay oo ku buuxsamay miiqaatu rabbihi, rabbigii miiqaadkii uu u qabtay iyo ballantiisii 40 laylatan 40 habeen. wa qaala markaasuu yidhi nebi muuse markuu baxaayey wa qaala muusaa nebi muuse wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkii haaruun ahaa ukhlifnii iiga khaliif noqo, iiga beddel noqo, booskayga gal fii qowmii qoomkayga, wa islaaxi hagaaji oo wixii xumaada iyo wixii si kala noqda sii tootoosi intaan ka imaanayo. walaa tattabic hana raacin sabiila almufsidiina, mufsidiinta jidkooda. nebi haaruun calayhi salaam waa nebi, mufsidiinta jidkoodana ma raacayo, laakiin way iska fiican tahay qofka qoomka lagu dhaafayo in lala sii dardaarmo. walammaa markii jaa'a uu yimid muusaa nebi muuse limiiqaatina ballanteennii markuu yimid, wakhtigii aanu ballannay markuu ku yimid ama meeshii aan ku ballannay limiiqaatina, oo wakallamahu ou la hadlay rabbuhu rabbigii. nebi muuse markii makaankii ballanta uu yimid ilaahayna uu la hadlay, qaala wuxuu dhahay nebi muuse rabbiyow arinii iskay tusi buu yidhi, arinii itusi buu yidhi ilaahayow iskay tusi, andur ilayka, andur aan ku fiiriya ama aan ku arka ilayka xaggaage. markii hadalkiisii uu dhegaystay uu istixsaansaday uu macansaday ayuu jeclaaday inuu ilaahay arko subxaana wa tacaala. nebi muuse wuxuu yidhi marka rabbi arinii, ilaahow iskay tusi, andur aan fiiriye, aan ku arkay ilayka xaggaaga. qaala wuxuu yidhi ilaahayna lan taraanii, i arki maysid muusow, i arki maysid, sidaadaba ima arkaysid ma aha. dadka iimaanka leh ee rabbi rumeeyey nebiyaasha kulli ilaahay way arkayaan maalinta qiyaamaha, laakiin wuxuu ula jeedaa sida hadda aad tahay bini aadamnimadii adduunka intaad joogto i arki maysid. qaala lan taraanii laakiin fa undur fiiri muusow ila aljabali, buurta xaggeeda fiiri, jabal weyn oo asaga ka adag oo ka xoog badan oo ka kakan oo meesha ku tiilay yaa layidhi jabalkaa fiiri. fain istaqara hadduu sugnaado jabalka makaanahu booskiisa uu ku sugnaado, fasawfa dib dambe taraanii waad i arkaysaa, fasawfa taraanii adigana waad i arkaysaa. falammaa markii tajallaa uu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali, jabalkiibaa in yar laysku feeday oo ilaahay in yar laga tusay, jacalahu wuxuu noqday jabalkii dakkan, burbur buu noqday. dakkan ayuu markaa noqday wax burbur ah. jabashii inta yar ee muuqashadii yariiska ahayd ee rabbi isu muujiyey ayuu ku burburay. muusena wuxuu fiirinayaa jabalkiina allah wax yar isku muujiyey, jabalkii waaba burburay, ciid oo kaluu noqday. nebi muuse aragtidii uu arkahayay jabalkii ilaah loo fayday, fakhara wuuba dhacayba muusa nebi muuse saciqan asagoo mir daboolan. ka waran hadduu asaga ilaahay arki lahaa subxaana wa tacaala, ilaahay hadduu arki lahaa dhibaato badan bay ahaan lahayd. iska daa inuu ilaahay arkaye jabashii ka xoog badnayd asaga oo rabbi saa wax yar isugu muujiyo isu fayday yaa intay burbur noqotay kii buu arkahayey
kaasuu markaa la suuxay. fakhara muusa, nebi muuse wuu dhacay saciqan asagoo miir daboolanoo saciqahoo suuxan. falammaa markii afaaqa uu soo miir helay, markuu soo toosayna qaala wuxuu yidhi subxaanaka, ilaahu adigaa nasahan, tubtu ilayka, adaan kuu towba keenay, mar damba layga maqli maayo, ilaahu iskay tusi, wa ana aniguna awalu lmu'miniina, mu'miniinta midka ugu horeeyaan ahay buu yidhi nebi muuse calayhi assalaam. walammaa markii jaa'a uu yimid muusaa, nebi muuse limiiqaatina, ballanteennii uu ku yimid, oo wakallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii, qaala nebi muuse wuxuu dhahay rabbiyow arinii itusi, macnaha iskay tusi waaye, andur aan eego ama aan ku fiiriye ama aan ku arkay ilayka xaggaaga, ilaahayow isukay muuji buu yidhi. qaala wuxuu yidhi ilaahayna lan taraanii, ma ii arkaysid muusow, laakiinse undur fiiri ila aljabali, buurtaa fiiri. waxbaa la rabaa in la tusiyo. buurtaas fiiri, hadday buurta ilaahay waa isku muujinayo, buurta hadday sugnaatay meesheedii iska ahaatay waxba noqon weyso, adna waad i arkaysaa. laakiin hadday buurtu isbeddesho, ogow sida xaalku noqon doono. walaakin undur fiiri baa la yidhi ila aljabali, jabasha xaggeeda fiiri iyo buurta, fain istaqara, hadduu sugnaado, ay sugnaato buurta makaanahu, booskiisa hadduu ku sugnaado sidiisa ahaado, fasawfa taraanii, adna waad i arkaysaaye. falammaa markii tajallaa, marka nebi muuse buurtii buu saa u fiirinoyaa, buurtii baa wax yar ilaahay isku furay subxaana wa tacaala, muuqasho yar iyo wax yar baa saa inta loogu muujiyey. buurtii oo dhanba waxay noqotay bacaad daatay oo kale, burbur bay markaa noqotay. falammaa tajallaa, markii uu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali, jabalkii jacalahu, waxa uu ka yeelay uu noqday buurtii dakkan bay noqotay, wax baaba'ay, habaas iyo boor oo kaley noqotay, dakkan wax burburay bay noqotay. wa khara muusaa, nebi muusena wuu hoobtay, wuu dhacay oo dhulkuu ku dhacay saciqan, asagoo miir lahayn, asagoo saciq ah oo asagoo dhan miir daboolan. falammaa markii afaaqa uu soo miirsaday, uu soo kacay oo miirkii ku soo noqdayna, qaala wuxuu yidhi subxaanaka, ilaahayow adigaa nasahan, xumaan iyo ceeb melihid waaye, tubtu ilayka, waan kuu towba keenay, xaggaagaan u soo laabtay, mar damba ma dhahayo ilaahu iskay tusi, wuu ogaaday. wa ana aniguna awalu lmu'miniina, mu'miniin awalkeedaan ahay, mu'minkan ugu horeeya ayaan ahay buu yidhi. wa ana aniguna awalu lmu'miniina, mu'miniinta midka ugu horeeya ayaan ahay buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. mu'miniinta midka ugu horeeya ayaan markaa ahay. bacdamay sidaa tahay ayaa waxaa loo tilmaamayaa nebi muuse ama qof bini aadam ah intuu adduunka joogo inaysan u sugnayn ama aysan u cuntamin ama uusan awoodi karin inuu ilaahay arko subxaanahu wa tacaala. wajaawasnaa, waan ka tallaabinay oo waan gudbinay bibanii israa'iila, reer bani israa'iil, albaxra baddii baan ka tallaabinay. faatow, waxay u yimaadeen oo ay soo mareen calaa qowmin, qoom dushii, yackufuuna ku dulneg calaa asnaamin, asnaam dushood oo lahum ayagu ay leeyihiin, qoom asnaamyo caabudaya ayay soo mareen. qaaluu waxay dhaheen yaa muusa, muusow ijcal yeel annagana lanaa annaga ilaahan, ilaah noo sameey, kamaa lahum aalihatun, say kuwani ilaahyo u leeyihiin. qaala nebi muuse wuxuu yidhi innakum adinku qowmun qowm baa tihiin, tajhaluuna oo jaahiliin ah, macnaha wax la caabuda noo samay waaye, say kuwanba u leeyihiin. inna haaulaa'i kuwani mutabbarun waayo kuwa la halaagahaya, maa hum waxa ay ayagu ku dhex sugan yihiin, fiihi gudihiisaa lagu halaagayaa. wa baatilun, waxaa baatil ah maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabtaa, waxaan ay samaynayaanna waa baatil oo waa la burinayaa. qaala wuxuu yidhi nebi muuse, agayra allaahi, ma ilaahay kayrkiisii cidaan alla ahayn miyaan abqiikum idin raadiyaa, ma idin dalbaa ilaahan, ilaahnimo miyaan idinkaga dalbaa ilaahay kayrkiisa, ilaahan xaal uu yahay mid la caabudo, wahwa ilaahayna fadalakum, allaha idinka fadilay oo idinka saramarsiiyey ah, cala alcaalamiina uunka dushiisa. waid
wadkuruu xusuusta id wakhti anjaynaakum aan idinka korinoon idinka badbaadinay min aali fircawna fircoon ahalkiisa yasuumuunakum xaalo ay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun yuqatiluuna waxay layn jireen oo ay dilahayeen abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxayna ka sariiganahayeen nisaa'akum naagihiinna wafii daalikum kiinaa koritaanka ah oon idin badbaadinay balaa'un waa nimco oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay cadiimun oo weyn ama wafii daalikum kiina ay idinku samayn jireen balaa'un waa mixnihii imtixaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday cadiimun oo weyn wawaacadnaa waan la ballannay muusaa nebi muuse 30 laylatan 30 habeen wa atmamnaaha waannu dhammaystirnayoo waxaan ugu darnoon ku taam yeelnoon ku dhammaystirnay 30kii ب10 fatama wuxuu ku dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii miiqaadkiisii ballantiisana 40 laylatan 40 habeen wa qaala wuxuu ku yidhi markuu baxahayay muusaa nebi muuse liakhiihi walaalkii haaruun ahaa ukhlufnii khaliif iiga noqo ii beddel noqo fii qowmii qoomkayga iila har macnaha oo beeshii aan ku jiray gal wa aslix hagaaji oo wax toostoosi walaa tattabic hana raacin sabiila almufsidiina oo wax fasahaadiya jidkooda walammaa markii jaa'a uu yimid muusaa nebi muuse limiiqaatina ballanteennii uu ku yimid ama meeshii aan kula ballannay oo wakallamahu ou la kallaamay ou la hadlay rabbuhu rabbigii qaala wuxuu yidhi nebi muuse rabbi rabbigeeyow arinii itusiyo iskay tusi andur ilayka aan ku fiiriye rabbiyow inaan ku arkaan rabaaye iskay tusi qaala ilaah wuxuu yidhi lan taraanii aniga ma ii arkaysid laakiinse undur fiiri ila aljabali jabasha fiiri buu yidhi waa jabal xooggan oo aad u adag buur fain istaqara hadduu sugnaado buurta makaanahu booskiisa uu ku sugnaado fasawfa taraanii adna waad ii arkaysaaye falammaa markii tajallaa uu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali jabalka jacalahu waxa uu ka yeelay dakkan burbur asagoo dhanba waa burburay oo ciid oo kaluu noqday wakhara waa hoobtoo wuu dhacay muusaa nebi muusena saciqan asagoo miir daboolan asagoo saciq ah oo suuxsan falammaa afaaqa markuu soo miirooday uu soo miir helay uu soo kacayna qaala wuxuu yidhi subxaanaka ilaahu adigaa nasahan ilaahayow adigaa hufan oo ceeb iyo nusqaan iyo waxaan kuu qalmin oo kuu cuntaminba ka nasahan tubtu ilayka waan kuu towba keenay subxaanaka ay tansiihan baa kuu sugnaatay laka tubtu towba keenay waan soo laabtay oo waan u towba keenay ilayka xaggaaga mar dambana dhihi maaya hadalka wa ana aniguna awalu lmu'miniina mu'miniinta midka ugu horeeya ee rumaynahaya wax allaala waxaadna amartay ayaan ahay qaala yaa muusaa inii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam